bulshada kala gedisan ee ku nool degmada Ceelafweyn ee galbeedka gobolka Sanaag oo maanta la hadlay warbaahinta maxalliga ah ee ka howlgasha gudaha magaalada Ceelafweyn ayaa waxay cabasho ballaaran ka muujiyeen howlgallada ay ka wadaan ciidamada booliska ee ka yimid magaalada madaxda Hargeysa gudaha magaalada Ceelafweyn iyaguna ku eedeeyay inaanay si siman uga fulin howlgalladaas sidoo kalena waxay ka codsadeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland inuu keeno ciidamo isku dhafan oo si siman oo cadaalad ku dheehan tahay uga howlgala gudaha magaalada Ceelafweyn iyagoo amuraas ka hadlayana waxa hadaladoodii kamid ah oday tatawa halka waxaan ka sheegayaa cadaalad xumo aad iyo aad u fogaatay oo qaan gaadhay arintaas oo ku saabsan ciidanka SBU ee magaalada yimi dadkaasi nimankaas askar loo isku sheegayaan dadka guriyooda ugu dhacayaan waa la leynayaa dumar baa loo abayeelay caruur baa loo abayeelay waxaan ku yiri waa bilqadoon waxaan ku yiri عكتر مدي المري لين عقورنا وحى كسرنا واسكو غير ملحونا وحنا ورعيد العادية وغيرها هاي بالمسوا صوت ملعب وحوي قاري اسمه حاج حسن واحد شعب كدقمة Ceelafweyn واحد عسكرت حضرت لك يا عصب القشة ياريودا وحوي كوي dadkii jirdil ku sameeyay waxa gudub weyn ku sameeyay kuriyo ayaga laba xasan ka soo saaray dadkana waxay xidheen dadkii yaraanka jeerka ku jiraan waxna waxa uu qaadanayno maaha askari hore ee magaalada Soomaaliya way ka duwan yihiin sidan ma ahaan jirin sidan ma aha sida dadkii waxa laga soo guriyahoodii iyo hermii carraabay oo la soo ururiyay waxa la askarta hadda waxaan deyn halka ka bedelo xala waxa la xiray konton qof oo dhinac kaliya ah labada dhinac kale cilmi tigin si siman u wada galamayaan askartan dhan baan aragnay tahay iyo ninka taliya lagu sheegayaba xaay toona meherada fadhiya oo meheradada oo marka ka shaqeeysan oo marka xirayo waa xiraya oo cashadii cunaya ayaa cashadii lagu laabay dumarkiina waxaan ku waa la hatigi toosho madax laga jid gaaray naga baxalay hadaba garaanta habeen walba atiyaal iyo waxaan ku dhibaato iyo meherad ka jabin waynu hayaan ka soo gaaro ciidanka aarariyuudan ka soo gaaro iyo taliyooda ina Axmed Tiiraan ka soo gaaro leeyahay maxay tolo anagoo meheradii noo furan yihiin anagoo rag lacagti kule ayaa bandow looga dhigaya wala jijabinaya dagaal bana loo ka soo galaya markaan xidhano hoostana la ka soo galaya dabeetana waxaan ku nimankan lacagta kula hayn dadka ganacsanaya waxaan ku wari shaahooda raadsanaya waa la xidhxidaya dumarkii baan la ixtiraamayn raggi baan la ixtiraamayn dhalinyarada baan la ixtiraamayn dahana la ka qabto ciidankan baan leenahay ma hanala ka bedelo oo kuwa dhaamahna loo soo bedelo waxaan marka hore cambaareen u diray taliyaha ciidanka aarariyuuda waad moodid inuu ku shaqeynayo sifar hornimo oo sifadii dawladdu soo diratay oo baal maray waxaanu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taliyaha ciidanka biliiska taliya fadal aanu cadeynayna inuu taliyaha ciidanka aarariyuuda ku kacay sifooyin sharci darro ah magaalada laba beelood baa isku haya waxaad moodaa beel inuu caburin ku hayo beel aan ciidamo u tagin sidan lagu wada noolaan maayo waxaan u sheegaynaa dawladda inaan halka cadaalad oo ciidanka la soo dirtay aanu ciidan cadaalad aanu ahayn sidaana kama filaynaanu musabixi dawladdan anagu dhareecaynayno laakiin dadka halkan loo soo diray dib ha loogu noqdo geesta kale maraan la kulanay saraakiisha ciidamada ee loo soo jeediyay eedeymahaas ayaa waxay ka biyahaanba ka gaabsadeen inay wax jawaab ka bixiyaan eedeymahaas loo jeediyay ciidamadooda Axmed Mursal askar TV-ga caalamka Universal Ceelafweyn.